بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا الله سومالي ملك استعجوكتان وإن سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الشانل كينا الأندلس ميديا. عاوة إن شاء الله تعالى موضوع كسر بسنة عافمات كأين كشكين دونا. وأنا مهم موضوع عاسو وفيديو اختر مصري أو ماركتي لهجديسا في مصر ku hadlay waan ku dadaalay inaan idin turjumo af Soomaali ku turjumo intaan awoodeyda wuxuu ka hadlayaa mowduuc muhiim ah oo uu yiri dadka dhan gaarsiiyay bidnillaahi taala intaanan bilaabin sheekada waxaan ku xasuustay macallin Masri ah oo noo dhigi jiray markaan ardayga yar ahaa iskuulka ayar iskuul ahaa ayaa wuxuu maalin wuxuu igu yiri kelmad weligii ma ilaawi wuxuu igu yiri bos ya Ahmed ya ibni yani Ahmed oo eeg بص معناه هو ايه لهجة مصرية يا ابني العلم ده زي كورة معناها علمه وسيلة كبدة تاخد الكورة تضربها في الحيطة ترجع لك تاني يعني كبدة مركز قابتيد او اي تاي ماركتي بلاستيك ماركتي مطاط بلاستيك اتكله فتيد جدارك وكوسو نقول ساعة العلم ده عامل زي كورة حترميه في الحيطة هيرجع لك تاني معناها علمي سيدة كبدة او كلا وتكله فنسا جداركي وكوسو نقول waa maxay macnuhu maanta wixii markaad ka sheekaysid maalin kasta dadka u sharaxdid oo kan u sheegtid oo ka u sheegtid waliga ma ilaawis wasida marti qofka daaciya oo kale mesela daaciya Allah subhanahu wa ta'ala meel kasta oo galo diintii buu faafinaya kan buu la hadlaya kan buu sharaxaya gaalku u sharaxaya kii muslimka buu diinta uga sheekeynaya wixii maskaxdiisa galayaan automatically wuxuu arkaya isagoo ka hadlaya markasta marka waliga ma ilaawi karo buugagna uma baahan inuu ka qaybo khalaas wixii wuxuu noqday wax ku jira aqligiisa 24 hours marka taasaan ku xustay ninka معلنك مصري مرة كسر دوادة إن شاء الله تعالى فيديو جن عاوة أن نشرحه وعشان مريد كيف يدست إن شاء الله تعالى بسم الله. السلام عليكم. هكلمكم دلوقتي عن الغاز اللي تسبب في وفاة 15 شخص الأسبوع ده من وحيري غاز باجرته سبب بيؤهد إن الإنسان شن يتبان قف ويجي إنه دافي 10 أشخاص في يوم واحد تبان قف مالين كلي كل إنسان وبينهم زوجين ليلة الصلاحية بتاعتهم وحاكم دها عريس iyo caruusad nin iyo gabadhii u guursaday maalintii ugu horeysay ku dhinteen وكمان تسبب في وفاة أسرة مكونة من 6 أشخاص في ليلة واحدة في المغرب waxaana kamid ahaa waxaana ku dhintay gaasta 6 family kamid ah 6 qof oo Moroccan ah وقيل إن هو السبب في وفاة دكتور إبراهيم الفقي ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة إلهي ونحرسته sababna waxa la yiri wuxuu ahaa gaasta sabab waxay u ahayd inuu dhinto دكتور وين او ايجيبشن اها او اللي يقان او لورنجر ابراهيم الفقي الهي ونحرسته رحمه واسعه نين بو عالم وين بو اهل الدين او امته دن با ادو جعلت نينك الهي ونحرسته وكمان دايما بنسمع عن ناس بيموتوا في العربيه بتاعتهم وهم قافلين باب العربيه ومشغلين تكييف برضه بسبب الغاز waxaanu maqlay xitaa dad baa jira ku dhinta iyagoo gaarigooda ku dhex jira way ku dhinteen sababtuna waa gaasta الغاز ده بيموتك غصب عنك لان الغاز ده لا له لون ولا له ريحه فلو طلع gastaas uu khasab ku dilaysaa buu yiri laano urna ma laha كميات كبيره midabna ma laha urna ma laha marka khasab ku dilay ma arksidna moogta ما تستنشقه بعد ما markaad waliba in badan maragt aad ka ursatid weeye لما يطلع المخ بكميات كبيره بيأثر على الاعصاب وبيشيل حركه الجسم marka aad ursatid maskaxdu gaaraya asaabta maragtay nerfaha ayuu gaaraya marka aad ursatid uu baabiinaya فبالتالي حتى لو انت فقت بعد كده مش هتعرف تهرب لان اعصابك بتكون سايبه جدا فمش هتعرف تهرب hadhowna xitaa hadaad soo kacdid carari kari maysid khalaas asaabtaadu waa bakti baad noqonaysaa moogta marka halkiiba ku baktay qofkii dagaasana ku socotaa الغاز ده هو اول اكسيد الكربون waxaa la yiraahdaa awal oxide الكربون carbon monoxide carbon kelmadda carbon waad maqasheen mono hadaad mono maqashid waa 1 mid kale jira waxa la carbon dioxide gaastu waa noocyo fara badan baa laakiin labadan iminka kamaanta aynu ka sheekayno waa carbon monoxide كان في البيت او عندك تكييف سخن هذا يستيد دفايد ومحي وباشن هيستن كموقتها لو استعماله كهرباء الجريو أما كاسته او بارد او حتى في العربيه بتاعتك تكييف أما أركيديشن أما مارتو حيلان سوكله بارد او حتى ناوي تركب جهاز من الاجهزه ديت أما أداة دونس إن هذا ركبتيد أما كش أذكر عدد جريجا ماشين هذا كم إذا كون ما تجريجا كلية باذن الله الكلام اللي جاي ده هيفيدك جدا دقي يسبوا هذا الكسوس على هذا آد وفائدة بدوية هقول لكم دلوقتي ازاي الغاز ده بيطلع وازاي والدين شيء إمك بيرجعه سيدا يصوب بحده استاموين كده محاكم ده يصيد اللي سجى إلى لها جاسته
الانسان والعيان لما يجينا المستشفى بيكون عامل ازاي iyo marka uu qofka xanuunsanaya uu noogu yimaado dhakhtarka كمان ازاي نتفادى الموضوع ده. يعني سؤال الموضوع isaga fogeyn lahayn isaga ilaalin lahayn. يا جماعه لازم نعرف ان نسبه الاكسجين في الهواء الجوي wuxuu yiri oxygenka hawada maaragtay dibadda waxay maraysaa waa 21% ayuu oxygenku yahay. نسبه بسيطه جدا لا تتعدى 21% وبالتالي waana wax yar oo yani ujeeda wax yar oo ma gaadho xitaa 21%. تستخدم سخان الغاز في الحمام بعد فتره بيستهلك كل اكسجين الموجود في الحمام. markaad sakhaanka ama heaterka maaragtay xamaamka u isticmaashid oo qubaysanaysid oxygenkii qolka ku jiray suuliga ayuu qaadanayaa uu ka dhamanaya meesha وبعد كده بيحصل احتراق غير كامل kadib uu gubanayaa macnaa waxaa dhahda ixtiraaq baa dhahdaa طلع غاز اول اكسيد الكربون kadib waxaa soo baxaya gaasta awal oxide الكربون macnaa waa process weeye بتستنشقه بيخش الرئتين waad ursanaysaa wuxuu gelayaa samabada ra'ateenka waa samabada weeye ان الغاز ده ليه القدره على الارتباط بهيموجلوبين الدم. gaastaasu awood buu leeyahay inuu hemoglobinka dhiigga ku xidhmo oo galo. hemoglobinku waa maxay daba hemoglobinku waxa weeye waa protein cas oo maaragtay dhiiggaaga ku jira mas'uuliyadiisu ama muhiimadiisu ugu weyn waa maxay transport wuxuu gudbiyaa wuxuu qaadaa oxygenka soo gelaya jirkaaga ayuu hemoglobinka qaadaya اكتر 250 مره من الاكسجين فبيخش الدم بسهوله جدا easy usoo gelaya dhiigga gaasu كده يطلع للمخ وشويه شويه ياثر على الاعصاب ويشد maskaxdu gelaya step by step acsaabtu dhib u keenaya حركه الجسم وبعد كده يحصل jirkana wuxuu ka dhigayaa barlaas qofkii ma dhaqaaqi karo اختناق وبعد كده يحصل الوفاه. kadibna qofku waa dhimanaya. بالظبط لو انت جبت كوبايه وقلبتها وحطيت تحتها شمعه example boxi wuxuu ku yiri haddaad keentid koob oo aad candle macnaha candle baad ku xidhay koob duqsi yar baad maaragtay gelisay gudaha u yarada maxaa dhacaya ورا وحطيت جوه الكوبايه المقلوبه دي دبانه هتلاقي dibbaana waa duqsiga koobka maqluubka aad gelisay xabad duqsiyaad gelisay candle-kana waa u shiday بعد شويه بسيطه الدبانه ديت بدات تدروخ وبعد كده xoogaa kadib markasta duqsiga yaraayo dawakhay oo maaragtay suuxay وقعت وماتت way dhacday way dhimatay عشان استنشقت غاز او sababtoo ah waxay ursatay gaasta awal oxide الكربون carbon monoxide. الكربون. كمان نفس الكلام في الدفايات الناس اللي بتشغل الدفايه في الاوضه وتقفل نفس الكلام hadalkan waa exactly waa qofka maaragtay heaterka guriga ku jirta heaterada maaragtay yaryar ee gaasta leh ama waxyaalahaas oo kale ku jirta ee isirada maaragtay isku yara kulule waa same example weeye example-kii duqsiga yara oo kale الباب على نفسها بعد laanna gurigaas soo albaabkaas ku soo xidhay شويه بيطلع غاز او اكسيد الكربون وبيحصل نفس الكلام. markaad albaabka soo xidhatid gaastii maaragtay aad shidatid oo guriga ku kululaado albaabkan hoosta xidhan yahay exactly example-kii ninkuu siiyey doctorku duqsiga yara meesha maaragtay ku baktiyey saasoo kale qofku noqonaya laanna meesha qolkuu ku xidhan yahay oxygen ma jiro. الناس اللي بتنام في العربيه وبتشغل التكييف سواء سخن او بارد شويه شويه بيطلع ama dadka gaariga intay galaan hoosta ka soo xidhay yiraahdo wallahi ma sha Allah waxaan shitay heaterkii ama air conditionkii dhowr saacadood buu seexday maxaa dhacaya الغاز ده من الفتحه بتاعه التكييف وبرضه fatxadan yare maaragtay air conditionka gaariga ayuu ka soo baxayaa تنشق الغاز ده وانت مش داري وبتموت وانت مش adoo aan ogeyn baad ursanaysaa لان زي ما قلنا الغاز ده ku dhimanaysaa adoon ogeyn لا ليه لون ولا ليه waana sidaan idiin sheegay gaastaasu kalarna ma laha midabna ma laha urna ma laha. طيب اعراضه ايه؟ اعراضه غثيان لنفسك astaamooyinkiisu ama symptomsku ama acraadiisu maxaa ka mid ah غثيان qofku markuu inuu qaaco dareemo oo kale sii noqdo dookhad inuu yara dawaqo wax dareemo irtifaac fi darabaat alqalb macnaha maaragtay wadnaha darbadiisa maaragtay ayaa macnaha extra ayuu macnaha darabaat alqalb ayaa ziyaado noqonaysa macnaha صداع madax xanuun buu intaa dareemaya رجع دوخه ارتفاع في ضربات القلب صداع والحمد لله ان بيحصل لك الحاجات ديت عشان تنبهك تطلع بره المكان ده. wuxuuna yiri alxamdulillah qofku markuu waxaas ay ku dhacdo waa nicmo min Allah laanu uu dareemaya meesha waxba jira markiiba uu baxaya buu kuliyay فورا ناس كتير بتيجي dibadda uu baxo fresh qaado يكون عندها صداع شديد جدا فلما اساله يقول لي كنت قاعد في اوضه مقفوله ومشغل التكييف بقالي كذا ساعه. qof baa ku imanaya wuxuu koranaya inuu صداع xun baa madax xanuun baa iyo maxaan sameeyaa oo xagaad ka timi koranaya qol baan ku jiro air conditioning baa in badan ii socday wadamada maaragtay kulul matala khaliijka oo kale ruwan garanaya marka aan sometimes waxaad galaysaa qolkii condition baad ku shidaysaa dhowr saacadood 10 habeenkaad ku seexanaysaa waxaad soo kacaysaa subaxii adoo madaxu karkarayo cajiib. الفكره اللي هو استنشق نسبه بسيطه جدا من اول اكسيد الكربون لانه xoogaa in yaro awal oxide carbonku yara ursaday mogta ninkaas uu ka hadlayo
هي اللي عملت له الصداع الرهيب ده. iyadaa u samaysay madax xanuunka weyn. المهم اول ما تحس بالاعراض ديت بسرعه لازم تطلع في مكان مفتوح markaad astaamooyinkaas aad dareentid waxyaalahaas oo kale acraadaas oo kale ka bax qolka markiiba waxaad tagtaa وتستنشق هواء نقي. hawo fresha soo raadso. لازم بعدها تروح المستشفى عشان يحطوا لك اكسجين تحت ضغط عالي. waa inaad markiiba degdeg u tagtaa dhakhtarka oxygen baa lagu siinayaa pressure weyn leh زي ما قلنا الغاز ده بيكون مرتبط بهيموجلوبين الدم. leanno gaastaas waxay gelaysaa suu sheegay doctorku hemoglobinka aan idiin sheegay transportka ku sameeya oxygenka bay gelaysaa gudaha marka degdeg dhakhtarka u gaadh بصوره شديده جدا ويكون اصعب عضله اعصاب وبالتالي انت محتاج لازم اكسجين تحت ضغط عالي والا الاعصاب هتفضل متاثره oxygen degdeg aad u baahantay oo culus عندك طول حياتك. hadhowto dhibaato weyn ba ka gaaraysa acsaabtaada haddaadan laga gaadhin oo oxygen lagu siin. طب تنصحنا بايه؟ اول حاجه سخان الغاز لازم يتركب maxaad nagu wanaynaysaa buu yidhi okay number 1 على الحمام. طب احنا خلاص ركب wuxuu yidhi sakhaanka hiitarka maaragtay gaasta waa inuu xamaamka toiletka dibadiisa noqdo weeye ama waa inaad suuliga gudihiisa aad u samaysaa waxa la yidhahdo maaragtay shafaad ee soo nuuga gaasta sida dee kitchenka oo kale madbaxa oo kale wuxuu leeyahay marka cuntada la sameynayo bahal soo nuugu leeyahay hawada mogtay suuligana saas oo kale waa inaad shafaad keentaa hawada wareejiya oo maaragtay carbon monoxide ka dibadda u saara oo hawo freshna soo geliya. الحمام نعمل ايه؟ يبقى لازم وانت بتستحمى تفتح شباك الحمام. طب معظم markaad meedhinaysid buu yidhi daaqadda xamaamka yara fur xoogaha الناس بتقفل الشباك بتاع الحمام عشان الجيران وكده يبقى لازم تركب kale dadka qaarkood way xidhaan daaqadda xamaamka cashaan jiiraanka iyo waxyaalaha may buu wada samayn kartaa شفاط هواء في الحمام. bahalka soo nuuga ku samayso. ده اول حاجه. تاني حاجه اياك تنام في العربيه وانت مشغل التكييف. talabaad buu yidhi iska ilaali ixdar buu ku yidhi inaad gaadhiga ku seexatid adiga oo hiitarka ama maaragtay air conditionka shitay oo xoogaa iska yani iska ilaalitaa وقفل الباب لان سهل oo aduu weliba albaabka xidhay iskana ilaali. تروح عليك نومه وبعد ساعتين waxaa dhici karta 3 ساعات 4 ساعات تستنشق غاز او اكسيد الكربون وتموت وانت مش داري. waxaa dhici karta in hurdadu kula tagto 2 ama 3 saacadood iska seexatid aad iska ursatid maanta gaastaasoo dhan aad ku dhimatid adigoo aanan ogeyn. كمان لو انت هتنام في اوضه مقفوله اكتر من 9 ساعات ما ينفعش تشغل التكييف سواء. wuxuu yidhi inaad qol ha seexanin qol 9 saacadood wax ka badan qol xidhan weliba hoosta ka xidhan adoo shiday ama hiitarka jawiga kuu kululeeya ama air conditionka jawiga kuu qaboojiya iska ilaalitaa 9 saacadood albaabka kuu xidhan. او بارد. كمان يا جماعه بالنسبه لسخان الكهرباء مهم جدا قبل ما تدخل تستحمى تفصل. iskana ilaali buu yidhi hiitarka maaragtay kahrabadda intaadan suuliga gelin taabo buu yidhi intaadan dishka isticmaalin taabo. سخان الكهرباء من بره. طبعا دلوقتي دخلت الحمام استحمى ونسيت اقفله يبقى حاول قبل ما تنزل تحت الدش تختبر الميه بايدك عشان intaadan dushka qaadan test ku samee meesha kahrabadda ما تكونش متكهرباء. كمان اما السباك يجي يركب لك السخان الكهرباء حاول تخليه يظبطه على 60 درجه مئويه. wuxuu yidhi ninka kuu sameynaya moogtay hiitarka kahrabaa'iga ah waa inuu kugu adjustment kugu sameeya kugu habeeyaa 60 degree yay ka badnaanin لان كل ما الحراره ترتفع بيأثر على القلب بتاع السخان وبالتالي ممكن بعد كده يحصل مس كهربائي. wuxuu yidhi marka uu xaraaradu kacdo waxaa laga yaabaa inuu injinka ama haartka moogtay sakhaanka inuu kiciyo ويحصل الميه تتكهرب زي ما حصل مع الدكتوره hadhowtona kahrabad baa meesha imanaysa markuu aad moogtay xaraaradu u kacdo aad taabatid meeshii hiitarka kahrabad weyn baa ka dhalanaysa qofku way qabsanaysa halkuu ku dhimanaya sababta ay ugu dhintaan dadku marka moogtahay sakhaanka kahrabaa'iga ama hiitarka kahrabaa'iga marka lagu habeeyo darajad aad u sare waa dangerous weeye sida iminka uu yidhi ay u dhimatay gabadh uu ka hadlayay uu yidhi يرحمها يا رب. ilaahay u naxariistay sida gabadh uu ka sheekeynayay doctorad ah oo taabatay oo ku dhimatay. حاولوا يا جماعه تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا خاصه الايام دي لان معظم الناس بتستخدم السخانات والدفايات. walaalayaal buu yidhi videoga dadka oo dhan u dira buu yidhi sababta weliba gaar ahaan maalmahan leanno maalmahan dadku aad bay u isticmaalaan hiitaradan iyo sakhaanadan iyo waqtiyadan oo kale aad baa loo isticmaalaa والتكييف السخن وباذن iyo kideshinka iyo الله ربنا يجعلك سبب انك تنقذ حياه انسان. ilaahayna waxaan ka rajayay inuu kaaga dhigo sabab aad u badbaadisid qof bani aadan oo walaalka muslim. ربنا يا رب يحفظنا جميعا وباذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب جدا. ilaahayna xafido insha allah video kale korka anna waxaan leeyahay rabbana yakrimak rabbana yaxfazak rabbana yadika الصحة والعافية وجزاك الله خير.
aad buu ugu mahadsan yahay doctorku marka walaalayaal insha allahu tacaala ka faa'iidaysta barnaamijka hana ilaawina inaad dadka u gudbisaan channelkana insha allahu tacaala wax kasta oo cusubna idin soo gelinayaa arrimo fara badan baan insha allah soo wadaa oo kala duwan oo moogtahay dee ummadda bulshada soomaaliyeed ka faa'iidaysan karto oo khayr ah waa la socotaan channelkan waxaan soo gelinaa insha allah wax wada faa'iida insha allahu tacaala haynagala bakhaylin subscribe-ka iyo maaragtay gambaleelka taabo biidni illahi tacaala wax kasta oo cusub oo kuusoo gudbinayaa mar kasta aan wax cusub keeno markiiba kusoo dhacaya aad u daawatid ka faa'iidaysid insha allah walaalahana u gudbi dadka oo dhan oo asharka aynu kala qaybsano insha allahu tacaala subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk